xubintii iyo hilibkiiba waa lagu kala tegay naf walba dee lacagtiisa wuu wataa mid yar iyo mid badan intaba ummaddu way iibsanayaan iyo marka gacan labaad uu soo maro way kala duwan yihiin gacanta labaad baa ka kulul gacanta hore halkan waa sayidada ganacsiga xoolaha ee magaalada Hargeysa waxa maanta si weyn ay u tahay mid ciriiri iyo sixmad badan ay ka jirto waxaana isku yimid qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa kuwaasoo iibsanaya xoolaha udxiyada ama gowraca qiimaha xoolahaasi lagu kala iibsanayo udxiyada ayaa isagu sare u kacay isagoo gaaray ilaa $200 gudaha sayidada ayaana mid laga dareemayo dhaqdhaqaaqa kala iibsiga xoolaha udxiyada iyadoo gaadiid badan oo xoolahaasi qaadaya iyaduna ay soo galayaan gudaha sayidada ugu horreyn waxaa nooga warbixiyay qaabkay u socoto kala iibsiga xoolaha udxiyadu qaar ka mid ah dadka iyagu xoolahaasi iibinayay udxadu maanta waxay leedahay siyaabo badan baa loo iibsanayaa arigu waa dhowr waa ilaa 4 nooc ilaa 3 nooc waa 160 nooc 180 140 130 in walba ku doonu qaadanaya ariga ima kaadar kaysto waxa la siiyey qiimayaal kala duwan baa la siiyey qaar waxa la siiyey 160 qaar 150 baa la siiyey qaar 140 baa la siiyey qaarna 130 baa la siiyey sida ugu kala waaweyn qiimihiisa kala sareeya markaad eegtaydan udxadan iyo ulxooyinkii hore xoolaha sida loo iibsanayo haddii ahaato xagga badashada bal maxaa isbedelada odhan kartaa wallaahi udxooyin kala duwan bayna soo maray udxooyin waxaanu garanaa hadda ayaan neefba lahayn neefba aanu seelada joogin udxooyin uu dabadda uga baxay seeladuna way jireen maantana waa iska dhexdhexaad arrafadii saddexaad oo kale 200 iyo 300 buu gaadhay tantii ku xigtay tanna way isku dhadhowyin sanadka arrafadeedisay aamin ku bilaabmay ismuu taagin nimca lagu jiraa wala naga iibsadaa barwaaqa alxamdulillah ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa abniga iyo dawladnimadayada iyo maxaan ku raday ganacsigayga ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ma sha Allah maanta ulxadii baa la kala iibsanayaa bal arigaad haysaan iyo sida la idinka iibsanay ka waran arigu kala waaweyn iyo neefba waa nooc qofba taagtiisu helay 130 baa la helaya 180 qaar la siinaya la helaya qaar maxaan ku raday 120 la helaya 95 baa la helaya qof waliba taagtiisa uu ka helaya saylada maanta qiimaha ugu sareeya la kala iibsanaya waa imsa anigu qiimii u sareeyay arkay 180 insha Allah alxamdulillah way iibsanayaan dadku cibaadada la fulinaya moogtay dabadna waa maalin cibaadada laga doonayaa ma sha Allah wala iibsanaya dadku iibsiga xooluhu aad buu ka xasan yahay xooluhuna dee way kala qaalisan yihiin oo dee isku hilib iyo isku dhinac midna maaha xubintii iyo hilibkiiba waa lagu kala tegay naf walba dee lacagtiisa wuu wataa mid yar iyo mid badan intaba ummaddu way iibsanayaan xoolahana si qurux badan baa loo iibsanayaa 140 150 160 170 180 200 qaar baa afka la galay marka xooluhuna aad bay u badan yihiin laakiin dadkeenna ayaa ka badanoo Allah barkeeyo dee aad baa dadka wax loogu iibsanayaa safarrada dadka iibsanaya soo iibsada intaba alxamdulillah dee waa la isdhex marayaa dee cidna cid mooga waa la macaashaya dhankooda iyaguna waxaa warbixin laga siiyey xoolaha udxiyada iyo sida ay u iibsadeen qaar ka mid ah dadweynihii ka kala yimi xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa maanta waxaan soo iibsaday 2 neef waxa la iga soo siiyey midba 120 ما شاء الله تبارك الله ما أنت ورا حقوق قارسنا ما أنت لكن الناس لين ساك أرورتي ورا بنسوق على ملها برقدي سانوه لا أضحدي مركب واحد سوقي أرجع في عنا إيمانية أدبون أرجع بدن يمد وأدبون سدوين أرجع شوقه قيمها كلامي وحدتكم حاليا وايرة قالي بالكورن قيمها اللي تكون عام واكويشة وكل دوية هاي مركب أرجع نكرر ميجا وطا يا مركب جعان لبعض وصامرة وكل دوية gacanta labaad baa ka kulul gacanta hore ninka reer miyiga markuu wato ay gacanta ku qabowdahay oo 120 130 meelahaas u jooga laakiin markuu gacanta labaad u wareego wuxuu tagayaa 180 70 wali ma heshay neefku xada mise waligood baarsa wadkan soo dhex jooga may calafkan ka qaadaya oo wali waan baarayaa kiigu haboonaa hidii hore dhulka abaar baha xoolo way hilibkoodu wuu xumaa ma fiicneen laakiin xoolo aad bay u fiicayeen barwaaqana way ku jiraan
baruur bay leeyihiin iidii horena 110 ilaa 108 baan laga siin jiray neefka imikana 140 baan laga siiyaa isku qiimaha iidana xoog caala qaalisan kana wata imika 140 baan laga soo siiyay iyadoo maalinta bariya guud ahaanba caalamka islaamka looga dabaaldegi doono munaasabada ciidul adxiyada ayaa marka la eego magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa laga dareemayaa inuu jiro hoos u dhac ku yimid diyaar garowgii xooganaa ee waqtiyadii hore laga dareemi jiray magaalada Hargeysa waxaana muuqata in hoos u dhac weyn uu ku yimi qaabkii dadweynuhu ay ugu diyaar garoobi jireen munaasabadaha ciidaha maadaama oo waqtigan oo kale ay ahaan jireen suuqyada ganacsiga ee magaalada Hargeysa kuwa aad sixmad oo jaan badan laga dareemi jiray dadweyne badanina ay soo buux dhaafin jireen Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa ما شاء الله سو دhowaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121